قدر ما تكفر أحسنت مسر هاي كميتي شخدي تاني مكان هاي بعرشك ما تكفر أحسنت مسر هاي كميتي يعني فرصية kulanti wanaagsan saaxiibada aan ku saaxiibnay channelkayga deq official meel walba aad joogtaan waxaan idin leeyahay kusoo dhawaada channelka please walaal marka kugu horeysay ay tahay channelka aad booqanayso waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe ay ii saartaa like iyo share iyo comment aad iga baqaylin oo la wadaagta asxaabtaada forobeelka si aad u yeesho muuqaalada aan halkan soo geliyo caawa habeenadii hore habeenay ka bedelan muuqaal khayro dareen igeliye ayaan waxaa jeclaystay in aan la wadaago mujtamaca ku tixan channelkayga iyo mujtamaca bulshooyinka Soomaaliyeed muuqaalkani waxaan ka soo xigtay ama aan ka soo qaatay channel lagu magacaabo Khalid Sayga waa channel aan isleeyahay waa samafale bulsho waa channel aan isleeyahay waxa uu caawiyaa dadka taagta daran ama dadka duruufahooda daahsan ayuu waxa uu keenaa banaanka marka muuqaalkan yaa idinka hor dhicin walaal please channelka haddii aad ku cusub tahay mar labaad iyo mar saddexaad waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe iyo like iyo share comment aad iga baqaylin oo noqoto daawadaha ugu horeeya muuqaalada aan soo gelinay aan u guda galno bal muuqaalkeena caawa khayrada dareen igu abuurtay ee aan jeclaystay in إن شاء الله ما أنت حسبنا كيس كاساكو سبيلنا قف باشلا وحوي مريا لوين باوي مريا عيالي محد باوي مريا كبعد وحي كوريان wuxuu dhahay maanta waxaan sameynaynaa muuqaal kaliis ah muuqaalkan waxaan ku sameynaynaa qof buraashla ah buraashla haddaad garanaynin buraashla waxaa laga wadaa qof caseeya kabaha ama qof tirtira kabaha marka muuqaalkan kaliiska waxay ku sameynayaan qof buraashla محد باوي مريا كبعد وحي كوريان ولا دير الله ما نقول شيء دون طلع ما يسنده راح يجينا قف كاس saddexda dhalinyar laba ka mid ayay u tagayaan buraashlaha ama caseeyaha waxay ku leeyihiin walaal lacag ma haysano ee inugu caawi calashaan inugu saacid ama si bilaash ah inugu casay kabaha ايوه وسيدي هاش مين محمد برشين سوا ما انا كبرشين صديقه ما هي labadii saddexda dhalinyar laba ka mid ah ayaa waxay usoo tallaabeen meel buraashla ah ama meel uu fadhiyo kuwa buraashlaha ama dadka wax caseeya waa runtii muuqaalkani waa dareen khayra lah aniga ahaantaani idiin soo tabinayo muuqaalkani waxa uu igeliyey dareen khayra lah waa muuqaal aan aad iyo aad ugu khayrood wiil iyo gabar walaalo ah misna danta iyo daruufta ku baday in ay ka xamaashaan qootliyoomkooda ama ay ka biishaan qootliyoomkooda kabaha ay caseynayaan ama kabaha ay buraashayaan bal aan eegno muuqaalkani khayrada xambaarsan ee dareenka leh ايوه وسيدي هاش مين محمد برشين سوا ما انا كبرشين صديقه ما هي waxay dhaheen markay u tagay labada wiilkay gabadhi waxay ku dhaheen hay walaal ma wax baa buraashaynaysa ha walaal leeyahay ma ininka ma wiilka buraashaynaa mise adiga gabadhi waxay dhahday aniga ayaa buraashaynaya ولا waxaan ku dhoolaa meherban ku degdegina ma barshan wala lacag ma haysana laakiin ya kuraas ayay soo qaateen gabadhii yareed ayay agta ka fadhiisteen waxay ku dhaheen walaalo lacag maan haysano ee bilaash ma nagu buraasha kartaa ama la dartiisa bal eeg gabadha yar naxariista ku jirto iyadoo ka shaqeynaysa buraashka kabahaasi bal eeg ila fiiri bal waxa ay leedahay waa caadi dhib ma lahan keen aan idiin caseeyo aan idiin buraasho daruufaha dunidu dadku way ku kala duwan yihiin daruufaha waa dacar ya قريشان ولا isagoo horumar wala ايج ودو مردي dib jir bahal baa idin hele magaceeda la weydiiyey ayase waxay ku leedahay anise ama bureysha daa'im wallahayo dadkaaga dhibaateysan darxumadii iyo dhibaatada daris la noqotay daa'imo deeqsi ايج ودو
wuxuu noo dhiibay. dib jir bahal baa idin hele nijaas baa idin hele midba waxaa idin dhiibay bal eeg haddana xaqooda ee dhididkooda ay dhacsanayeen ayaa waxaa siisinayaa lacag jeexan. qof bilaa damiir laabo ah ayaha ilmahan yariiska dhididkooda dhacsanaya wiilkan iyo gabadhan ayaa waxa uu siiyey haddana lacag jeexan ayuu siiyey. bal damiirkii aaway, bal dadnimadii aaway. muuqaalkan walaal waxaa kaa codsanaa haddii aad dhammaysato in aad caawiso gabadhaani dhiban ee shaqada noocan ah ku jirto. Laba qaato ma? dhex geli oo loo dhex geliyaa dukaankii waxaa loo dhex geliyaa ya walaalaatin kan yar fariid xageed ku baratay baalash waa daacad gabadha waxay taagan tahay ma la qaatamiya lacagta noocan ah, lacagtan jeexna ma la qaatamiya ayay taagan tahay gabadha. xanuun badan ah markay dhibaatada noocan oo kale noloshaada soo daristo. kan yar fariid xageed ku baratay baalash magacaagii muxuu ahaa igu celi magacaagii qureysha iyo qureysha axmed maasha allah. bal eeg gabadhii kabihiyaa tirtireysaa bal eeg magaceeda mar labaad weydii waxay ku dhahday qureysho qaadirka ku oomo oo kuu jeedaa quudkan ka wanaagsano qaadira kuu sahal gabadhaani haddaad caawisaa adna alla wou ku caawinaya. way caseynaysaa shaqadan oo kale. bal raggii ayaaba ka bixi karin gabadhaani yar. xanuun badanaa noloshu, alla maxay xanuun badan tahay noloshu markay daruufaha ee sida dacarka camal kugu dhadhamaan. shaqadan maad ku faraxsantahay mise raali kama tihid Shaqadii. tan iminkaad haysa baarashka maad ku faraxsantahay mise raali kama tihid Iyo faraxsan yahay. waad ku faraxsan tahay sax. su-aal ayuu weydiiyey waxa uu ku dhahay shaqadan araaliga ka tahay ama maanta aada hayso ma ku faraxsan tahay? waa gabadh iska dhoola cadeynayso, waa gabar yar iska dhoola cadeynayso, waa gabar yar iska qoslayso ayaa waxay leedahay waan ku faraxsanahay. dantii duruufta shaqadii ku badaa waa inaad ku faraxnaataa. Faraxsan yahay. waad ku faraxsan tahay sax. maalintii lacag fiican makaa soo gashaa ya hay xaafadda ma dibirtaa dibirka maxaad u fahamtay? wuxuu dhahay maalintii lacag fiican makaa soo gashaa. markaasay dhahda haa oo ma dabirtaa reerka? may ayay dhahda waa run shaqadani laguma dabari karo reer, waayo lacagta kaa soo gashaa iyadaa waa lacag yar ah. lacagta kaa soo gashaa waa mid adiga kugu filneen. Ma ka soo imsaad maalin ka shaqeysaa walaalo anigu labaatan kun maalin oo dhan waxaad igu beerashaysay bismillaah. maalinta oo dhan 20 kun ayay shaqeysaa. 20 kun shilin Soomaali ah. xanuun badan ah. dadku maalinka hore waxay inta wax barashaynaysaa waa loo dhan maxaa iga galay anigu shaqadaydi maaha. waxba kama gelin fariid weydii waran hore ku shaqeeyay haday inuu fariid ya waxa uu dhahay dadka miyeen ku dheheenin inantan wax buraashanaysa ayay waxay ku leedahay dadka way dhahan maxaa iga gal waa shaqadeeda. way ku qanacsan tahay nolosha ay ku jirto. allahayo adoomankaaga dhiban allow adiga dhibka ka saari karee allahayo adoomankaaga dhiban dhibka ka saar. waxba kama gelin fariid weydii waran hore ku shaqeeyay haday inuu fariid ya soo waayay guriga. soo weydii asaga waxay gabadheena igi ka dibinaya ayaa waxay leeyihiin qof nin baa doonaynaa inoo buraasheeyo ama inoo caseeyo. nolosha xanuun waaye, nolosha duruufeedu waa xanuun. fariid baad farii ayay uga caseysay. labadii nin way baxeen, laakiin mid iyaga ka mid ah ayaa imaanayo
kabaha ayuu ka casaysanayaa waxa uu siinayaa laba jibaar labada nin ayuu casaysay ilaa iyo 48 qof kale باش ما يصح كان كوي كل فدي maxay kula hayeen الناس ردت اي كوبالي بالش فيديو وارو بالش lacagtii Soomaaliya lacagtii Soomaaliya وين يا وين الاساس ميسيين كان دكتور waxa uu weydiiyey su-aal yar waxa uu dhahay labada nin hadda aad kabaha u casaysay ama aad u baraashtay lacag miyay ku siiyeen ase waxay ku leedahay ha way siiyeen oo ma dhihi karto qof ee free uga casaysay ma dhihi karto free ayaan uga caseeyay ama ma isiinin عاد ما تريد تقاطع عاد ما تريد تقاطع يا عاد تريد خيط يعني ما تريد تصدق خيخة تريد خيط على يعني خاطر يا كنتن كنتن ها اي lacagta oo siiyey waa 50 kun oo shilin Soomaaliya markaas ayuu waxa uu leeyahay calashaan lacagtani waxaad ku lahaatay ma garanaysaa ayuu leeyahay سويت كوسي ما قرنصا يا عليك سويت كوسي ما قرنصا هاي يا ايش يا قربل يا لودي قربل سويت كوسي لودي نين سوي يقول لعقت وانسي العق بيسي ما سيرين دي يا markaas waxa ku dhahay sababta ku sii ma garanaysaa kontakasi labada nin ay lahayd lacag way siiyeen soo kuma siin may ay leedahay markaas runta ay sheegaysaa xanuun badan nolosha marka nimankii in lacagta siinaa way isla socdaan waa saddex oo muuqaalka ugu gaadhareen muuqaal gabadh baraashila ah waa gabadh baraashila ah waa gabar caseeyay ah marka si kale loo dhaho در الله يوم قرنصا سماها ugu baashaysa kuwan يا wanaaggan samaysay ما قال سميسو ما قرنصا labadan qof lacagtoodii waxa ku heshay konton qof lacagtoodii يا والله gaca dar ilaah ayaa uga casaysay labada hore markii wanaaga ay sameysay waxay ku heshay 50 qof lacagtoodii muuqaalkeena intaan ayaan kusoo gabagabeynayaa waxaan rajeynayaa inaad caawisaan waxaan rajeynayaa inaad noqotaan kuwa caawiya gabadhaas yar dhiban ee shaqada ceynkaas ee kale oo haysa shaqada noocaas oo kale haysa channelkeena haddii aad ku cusub tahay please subscribe like share comment iyo share ha iga baqiilin oo noqo daawadaha ugu hordheeda muuqaaladaas soo gelinay